kulanti wacan mar kale ku soo dhawaada sheekadii mulkiilaha qaranka. sheekadan waxaa qoray wariye Maahir Jaamac Aadam waxaan akhrinaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. waxaad ka heli kartaa channelka ogaalka Audiosom sidoo kale bogga Maahir Jaamac Aadam ee Facebook ah. qaybtantii ka horeysay waxa ay noo mareysay wadani oo mar kale igu celiyay qolkii WhatsApp groupka ah, balse aanu isla qaadanay in aan aamusana ka ahaado. waxaanu soo sheegnay in aanu isku sii xeeldheeraanay aniga iyo wadani. dhacdooyinkii xiisaha lahaa ee qaybtii hore aan ku soo sheegnay waxaa ka mid ahaa inuu wadani iga codsaday inaan ku matalo aroos ay leedahay gabadh walaashiis ah oo xamar ka dhacayay, taasi oo aan ka cudur daartay. waxay inoo joogtay aniga oo idin baray mid ka mid ah raggii aqoon-yahanka ahaa ee saaxiibkay aan talada weydiiyey uu igu xidhay oo ahaa bara jaamacadeed. haddaba maxay ahaayeen xogihii aan ka soo helay aqoon-yahankaas? ku soo dhawaada qaybta 9aad. mid ka mid ah raggii aqoon-yahanka ahaa ee aan ka xog raadiyey ayaa ila soo wadaagay dhowr maqaal oo uu ka qoray arrimaha Geeska Afrika. markii aan akhriyay inta badan qoraaladiisa ayaan ka dhex xushay qodobo aan u arkayay inaan faham dheeri ah uga baahnahay. qodobadaas waxaa ka mid ahaa sida isbedel walba oo dhaca haddana siyaasadda Itoobiya ay ugu milan tahay tan Soomaaliya. waxaa halkaas ku jira warbixintii 2016 dhammaadkiisa ay hay'adda cilmi baarista dalkaas Itoobiya ku sheegaysay in xilka madaxweyne ee Soomaaliya aysan qaban karin qabiil ka mid ah Soomaalida, balse ay qaban karaan qabiil kale oo ka mid ah Soomaalida. walow ay natiijada doorashada ku beeniyeen Soomaalida hadalkii Itoobiya ee lagu kala iibsanayay shacabka Soomaaliyeed, haddana ma dhacday in sidaa ay ku harto Itoobiya ama aan anaguga maaranno faragelinteeda. haddii ay maya tahay, waa maxay waxa sidaa u baaxadda leh ee aan dhankeeda ugu nugulnahay mar walba? arrintaas waa qodob isweydiin xagga siyaasadda ah, laakiin wejiga faragelinta ma ahan hal weji, wuxuu leeyahay dhinac bulsho. si mustaqbalka ay Itoobiya u hesho koox asal ahaan xambaarsan fikirkeeda oo ka hor iman karaan rabitaanka dadka iska leh dalka Soomaaliya. sidaa darteed waxaa sahlan inay hesho dad u eg Soomaalida, wax badan la soo dhaqmay, kuwaasoo yaqaana jid walba oo ay marto Soomaalidu. tusaale, sida beelaha Soomaalidu u shiraan, u xalaan, u gardhigtaan, isku dhowraan ama isku dilaan. sidoo kale inta ay dadka Soomaalidu isu jiraan qadiyad ahaan iyo wax wada lahaanshaha dhexdooda. arrinta labaad aan qoraaladiisa kala baxay waxay ahayd su'aal ah sideen u fikirnaa annaga, sidee qowmiyadaha nala midkaahi ay u fikiraan, xitaa kala qaybsanaanteenu ma tahay mid macno weyn ku fadhida. tusaale, markii ay Kenya damacday badda Soomaaliya, maamulka Somaliland oo ah kan cidhifka ugu dheer ka taagan wadajirka Soomaaliya wuxuu muujiyey inaysan dalna ka aqbalayn inuu qaato dhul ama hanti ay leedahay Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed. tani ma tahay baaxad ku filan cabirka kala fogaanshaha aragtida siyaasadeed ee Soomaalida. mararka qaar ma isbarbar dhigtaa waxa mahuraanka ah ee ka maqan dadka Soomaalida ah iyo sababta ay waxaasi u maqan yihiin. mararka qaar waxaa sabab la'aanta uga maqan ayaa ka sii lumiya wax ka sii muhiimsan oo ahayd in laga wada shaqeeyo iyadoo aan laga wada hadlin. laakiin dhammaan sababaha waa farqiga ku dhex beeran bulsho mid ah oo dhowr sumadood la kala siiyey, waxayna qolo walba ku dhacaysaa god iyadoo la dagaashan kuwii u dhowaa ee samata bixin lahaa. maxaa keenay in loo soo dhunto dal aan lahayn awood dowladeed oo maanta laga cabsanayo? maxaa hortaagan in si toos ah loo soo abaaro dadkan iyo dalkan? talada aqoon-yahanka iyo fikirkaygaba waxay ka sinaayeen dhowr arrimood oo u jawaab noqonaya su'aalaha sare. marka jawaabahaas la raadinayo waxaa dib loo qoraansanaya taariikhda ay qowmiyadu leedahay, waxaana halkaas ka dhalanaya su'aalo kale oo ah: tan hore, ma jirtaa qowmiyad ku soo duushay Soomaalida oo ka guulaysatay Soomaali? jawaabtaas waa maya. tan xigta, ma jirtaa in Soomaalidu ka guulaysatay qowmiyado kale oo ay dagaalameen? jawaabtuna waa maya. cajiib, sidee labada jeerba ay jawaabtu u noqon kartaa maya?
sababta arrinkan waxay noqon kartaa in Soomaalidu ay tahay qowmiyad midowda marka uu u muuqdo cadow si bareer ah u soo weerara. taasna waa sababta aan looga guulaysan. laakiin maba dhacdo taas oo wuxuu cadow kasta soo weeraraa isagoo isqarinaya ama ku soo dhuumanaya siyaasado iyo dabeecado bulsho oo u gaar ah Soomaalida. markaas cadowgu waa mid daahsoon keli waxaa markaa la istusaa Soomaalida. markaa ayayna noqotaa beelo, xaafado iyo kooxo isku haya sadbursi. taana waa sababta ay u tahay mid aanay iyaduna weli guulaysan. gumaystihii awoodda badnaa markii ay wiiqi waayeen dadka Soomaalida ah ee kala hor yimid halganka waxay darseen inay adag tahay in qowmiyadan si bareer ah looga guulaysto. sida awgeed ayay hal abuureen fikirka ah in la isu adeegsado qowmiyadan Soomaalida ah dhexdeeda. waxaa loo sameeyey sohdimo, sumado iyo sadad dheeri ah si ay abid isu hayaan. waana qaacidada ay isticmaalaan ilaa haatan qolo kasta oo doonaysa inay farmaroojiso danaha Soomaaliyeed. waana mid aan u daliishan karno in si dhow dadkan loogu soo dhex dhuunto kadibna la helo dad la sheegta waxa ay weligood lahaayeen waa noo gaar. ma ahan dad tiro badan, ma ahan dad aqoon badan, mana ahan dad midaysan ama nidaam dawli ah leh oo ay wada ilaashadaan. waxayna la daris yihiin dad intaasba isku haysta. tusaalooyinkaas waxaan u soo maray in aan idinla qabadsiiyo sida mid ka mid ah labadii aqoon-yahanada ahaa gaar ahaan barihii jaamacadda iiga caawiyey fahamka mawduuca aan la amakaagsanaa. intaas noogu filan tusmooyin gaaban ee maanta. dhinaca kale kooxdii ku wada jirtay WhatsApp-ka waxaa ka dhex bilowday taariikho ay soo jeedinayaan niman iyana sheeganaya aqoon-yahano. waxayna ka faaloonayaan taariikhaha magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya. waxaa mid walba laga sheekeynayaa sida ay qowmiyado hore u deganaayeen haatanna Soomaalidu ay u sheegato lahaanshaha. waxaa taas ka sii daran rag sheeganaya qabaa'ilo Soomaali ah oo leh asalkeennii wuxuu ahaa dad martigeliyey Soomaalida laakiin markii dambe qaatay dhaqanka Soomaalida. waxaan qolka ka dhexelay rag ay aad u wada taqaano bulshada Soomaalida ah oo markaa ay ka soo hadlayaan baraha bulshada sida Facebook caaya qabaa'ilada Soomaalida iyo siyaasiyiinta qaarkood. laakiin marka ay dhex joogaan qolkaas faafiya nacayb dadka Soomaalida guud ahaan ayagoo ku darajo raadinaya. waa maxay wixii ugu cajiibsanaa ee aan idinkaga sheekeyn karo? dad badan ayay isbari doontaa sheekadan. ku xidhnow ma foga dhammaadka. Master Wadani wuxuu ku soo wajahan yahay Muqdisho waana isku arki doonaa sida uu qorshuhu yahay saaxiibkay. xaggee ku dambeen qisadan iyo kooxda? aqoon-yahanka labaadna muxuu igu soo kordhiyey? kooxdan xaggee ku dambayn doontaa? waa maxay xaqiiqadu? la soco qaybta 10aad.